asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kan isaga ah ee sooyaaleed ee siyaasadeed oo aan idinka soo tabinayo bogta The World Somali. waa bogta The World Somali waa channel soomaaliyeed oo ku yaala ka howlgalaa cusubna barta youtube-ka. soo jeedintan iyada ah iyo barnaamijka kan isaga ah waxaan jecelahay inaan dul istaago arrimo xusan uu ka faallooday doctor daahir mire jibriil oo ah siyaasi soomaaliyeed oo xubin ka noqday ama siyaasi mas-uul ah ururadii siyaasadeed ee mucaarad ee dalka soomaaliya ka soo jeeday hadday noqdaan jabhaddii badbaadinta qaranka ee lagu magacaabi jiray Somali Salvation Front lana soo gaabin jiray magacyada xarfaha ah SSF ama Soodaf Soomaalidu u taqaan. sidoo kalena xubin ka noqday ururkii weynaa ama dalladii ay isugu yimaadeen ururkaas isaga ah iyo jabhaddii xoreynta dimuqraadiga soomaaliyeed ee lagu magacaabi jiray iyadana Somali Democratic Liberation Front iyo ururkii isagana lagu magacaabi jiray xisbiga shaqaalaha. saddexdaasoo urur oo ku bahoobay sanadkii 1982 dalladii lagu magacaabi jiray jabhadda dimuqraadiga ee xoreynta Soomaaliya ama Somali Salvation Democratic Front. arrinkan barnaamijka kan isaga ah kaga faalloon doono ama hor istaagi doono waa waraysi uu siyaasigaas isaga ah ee xusan markii horena mucaarad siyaasiya ahaa oo jabhadahaas iyaga ee xusan xubinka ahaa kadibna marxaladdii xukuumaddii madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed xogeyn ama maamulaha xafiiska madaxweynaha ee cabdullaahi yuusuf axmed uu ku magacaabnaa daahir mire jibriil. sidoo kalena muddo dheer uu qurbo joog ahaa oo ka mid ahaa gaaliyadda soomaaliyeed ee degaanka Minnesota ee cariga Maraykanka. guud ahaan waa nin bulshada soomaaliyeed aqoon u leeyihiin. waxaa dhacday in barnaamijka ama channelka lagu magacaabo Ha Noolaato soo saaraha ka yahay Ayaanle Xuseen Cabdi u waraysi la yeeshay siyaasi daahir mire jibriil. inkastoo aan halkaa waxaan ka cudur daaranayaa inaan khalday magaca Ayaanle Xuseen Cabdi oo aan ku magacaabay Ayaanle Siciid. barnaamijaan ka soo daayay channelka ku magacaaban The World Arabic oo ku soo baxay luqadda carabiga maalmihii tegay ama shalayto. haddaan u soo noqdo waxaan jecelahay inaan sii tixraaco ama turjumo arrimihii aan barnaamijkaas isaga ah ee channelka The World Arabic kaga hadlay iyo waraysigii siyaasi daahir mire jibriil. barnaamijkaas isaga ah laba arrimood baan kaga hadlay: xidhiirkii u dhexeeyey ururka jabhadda dimuqraadiga xoreynta soomaaliyeed ee lalahee uu ku magacaabay jabhadda badbaadada qaran yaanan oranin jabhadda dimuqraadiga
badbaadada soomaaliyeed aan iraahdo jabhadda badbaadada qaran oo dadku badanaa u yaqaanaan soodaf oo ah urur siyaasadeed oo kasii horeeyey jabhadda dimuqraadiga ee badbaadada soomaaliyeed. in ururkaas isaga ah uu xidhiir la lahaa dalka Israa'iil iyo inuu jabhadda badbaadada dimuqraadiga badbaadada soomaaliyeed xidhiir la lahayd maxaa la yiraahdaa dalkii Soviet Union ama midowga Sovietiga la oran jiray. arrinkaas isaga ee labaad in jabhadda dimuqraadiga ee badbaadada soomaaliyeed la lahayd xidhiir midowgii Sovietiga siyaasi daahir mira jibiliir guud ahaan meeshuu ka saaray. sidoo kale barnaamijkaas isaga ee xusan ee hore waan iftiimiyey in la kala saaro jabhadda soodaf iyo jabhadda dimuqraadiga badbaadada soomaaliyeed. saa awgeedna xidhiirku aanu noqonayn ka dhaxeeyey Israa'iil inuu ahaa mid ku kooban jabhadda soodaf Somali Salvation Front ama jabhadda badbaadada qaran, balse aanu lug ku lahayn jabhaddii dimuqraadiga ee badbaadada soomaaliyeed SSDF. si qoto dheer leh arrinkaas isaga ah runtii waan u soo tabiyey, waana ku muujiyey, waana ka muuqatay, laga dheehan karaa soo jeedintaas iyada ah, iyadoo xidhiirkaasu aanu jirin sannadihii 1986 1987 oo xilligaas uu ahaa xilligii jabhadda dimuqraadiga badbaadada soomaaliyeed SSDF, balse aanu ahayn xilligii xidhiirka lala lahaa dalka Israa'iil oo jabhadda badbaadada qaran ee soodaf la lahayd, xilligaasoo noqonaya 1976 1977. maadaama iyadoo ay jirto lana ogsoon yahay in xilligii 80meeyaadkii jabhadda SSDF xidhiirkeedu uu ku dambeeyey kuna qotomay ku xidhnaanshaha dalalkii gaashaanbuurta bari ee Warso ee horkacaysay Moscow ama Soviet Unionka. saas awgeedna aanu u jiri karin xidhiidh iyaga jabhaddaas iyada ah ee dambe iyo Israa'iil dhex maray, maadaama arrinka ideolojiyadeed ay ku talax tagtay ayna qaadatay jabhadda SSDF uu ahaa marksiyadda liiniiniga ay u janjeertay jabhaddaas iyadoo ah dhanka bari. saas awgeed aanu jiri karin xidhiidh dhex maray jabhaddaas iyada ee xusan iyo dalkii Israa'iil, balse saan barnaamijkaas isaga ee horan ku xusay inuu xidhiidhku dhex yaalay kuna ekaa jabhadda soodaf iyo dalka Israa'iil. sidoo kalena jabhadda soodaf iyo Soviet Unionka qudhoodu aanay xidhiidh lahayn, iyadoo lagu asaasay jabhadda soodaf dalka Talyaaniga 1976 balse uu fadhiisinkoodu ahaa dalka Kenya, iyadoo laga dhowaanayo lagana cuskanayo iyadoo uu jiray ilaa xad xidhiidh xumo u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya iyo dhowaanshaha dalka Kenya iyo Soomaaliya dhanka juqraafi ee logistic.
guud ahaan mar labaad baa la asaasay jabhaddaas iyada ee SODAF, Somali Salvation Front, oo laga asaasay dalka Ethiopia, iyadoo uu arrinkaas u dhacay 1979kii, gaar ahaan bishii February, ayna ugu wacneed iyadoo ay jabhadduba jirtay haddana in mar labaad la asaaso, iyadoo ay ku soo biireen jabhaddaas iyada ah miisaan culus oo siyaasadeed iyo ciidan, gaar ahaan saraakiil ciidan oo ah saraakiishii ka qayb gashay afgambigii 9kii Abriil 1978 ee Soomaaliya ka dhicisoobay. saas imaatinka saraakiishaas iyaga ah iyo siyaasiyiin la bahoobay wuxuu keenay in dib loo tafatiro, loo tarxaan bixiyo, boodhka looga jafo jabhaddii SODAF, Somali Salvation Front, oo mar labaad si qoto dheer leh looga asaaso dalka Ethiopia February 1979. markaas iyada halkaas ah waxaa xusan in la kala saaro labada marxaladood ee sooyaaleed ee soo martay jabhadda SODAF, oo ah wixii ka horreeyey 1979 iyo wixii ka dambeeyey sanadkaas isaga ah ee la soo gaadho 1982, oo ah sanadkii ee jabhadda SODAF la midowday jabhaddii dimuqraadiga xoreynta Soomaaliya iyo ururkii shaqaalaha ah, oo midowgaasu ka dhacay looguna gogon xaadhay dalka koonfurta Yemen ee magaalada Cadan. sidoo kale waxaa xusid mudan inaan dib u jaleeco mar labaad soo jeedintii Daahir Mire Jibriil uu ku tilmaamay in jabhadda SSDF ama jabhadda dimuqraadiga badbaadada Soomaaliyeed aana xidhiir la lahaan jirin dalkii midowga Sovieti ama Soviet Union, aanu ahayn arrin runtii laga been abuurayo, laga been sheegayo sooyaalka iyo xaqaa'iqa taariikheed ee sooyaaleed ee la ogsoon yahay, iyadoo jabhaddaas iyada ah ee tilmaaman ee xidhiidh qoto dheer leh la lahayd dalkii Soviet Union iyo guud ahaan dalalkii gaashaanbuurta Warsaw iyo dalal kale oo carbeed oo hanti wadaaga oo ay ka mid yihiin koonfurta Yemen iyo Syria iyo Libya. mar hadduu yiri siyaasi Daahir Mire in jabhaddu aana xidhiir la lahayn Soviet Unionka, isagoo ka warwareegaya inuu dalkaasu yahay dal shuuci, afkiisana ay ka soo baxday annagu shuuciyadda wax xidhiidha aan lama lahayn, isagoo og ama ka duulaya micnihii halka ay ka taagan tahay bulshada Soomaaliyeed arrinka shuuciyadda ah, iyagoo had iyo jeer la xidhiidhiya micnihii ka hortagga diinta, guud ahaan diimaha ama diinta islaameed. saas awgeed aanu jeclaysan in lagu sumado ama lala xidhiidhiyo jabhaddii SSDF, midowga Sovieti iyo dalalka Warsaw ee hanti wadaagga ah, balse la og yahay in jabhaddaas iyada ee xusan ee xidhiidh qoto dheer leh saan tilmaamay la lahayd dalka
Soviet Union iyo gaashaanbuurtii Warsaw guud ahaan iyo dalal kale oo Yamanta koonfureed iyo Syria iyo Libya ka mid ahaayeen, iyadoo la og yahay document badanna jiro caddaynayo iyo xidhiidhyo iyo booqashooyin madaxda jabhaddu ay ugu gooshi jireen Moscow iyo dalalka Yurubta bari iyo dalalka Carbeed ee hanti wadaagga ahaa. Isweydiintuna noqonayso maxaa keenay boqoshooyinkaas iyaga ah iyo xidhiidhkaas isaga ah iyo inay halkaas ku sugmaan mararka qaarkood, taasna lagu dari karo inay taageero siyaasadeed iyo hubeedba ka heli jireen iyo waxbarasho, ayna tahay arrin micnihii runtii lagaga been sheegayo sooyaalka, gaar ahaan sooyaalka Soomaaliyeed, iyadoo ay sabab u tahay arrinkaas isaga ah saan tilmaamay ka fogaanshaha shuuciyadda. arrinka labaad saddexaad runtii waan ku xusay isagana barnaamijkaas isaga ah aan kaga faallooday channelka The World Arabic oo ku soo baxay luqadda carabiga, wuxuu ahaa dilkii siyaasi Cabdiraxmaan Caydiid oo xubin ka ahaan jiray jabhadda SSDF. waxaan ognahay intaan la midoobin oo midowgaas isaga ah aan tilmaamay ee dhacay 1982 uu Cabdiraxmaan Caydiid ka tirsanaa ururkii lagu magacaabi jiray jabhadda dimuqraadiga xoreynta Soomaaliyeed. markaas waxaa mudan tilmaamta ah beenaynta aan ku beenaynayo in xidhiidhkii Soviet Unionka ah aanu ku ekeen siyaasi Cabdiraxmaan Caydiid iyo dalkii Soviet Unionka ahaa, balse saan tilmaamay uu ahaa mid ka dhaxeeya guud ahaan jabhadda SSDF lagu magacaabi jiray iyo dalka Soviet Union lagu tilmaami jiray ee maanta ka soo jeedo dowladda Russia iyo dowladihii guud ahaan 15 midowgaas isaga hoos iman jiray. sidoo kale arrinka ku taxan siyaasi Cabdiraxmaan Caydiid oo uu ka faallooday siyaasi Daahir Mire Jibriil oo ah inaan jabhadda SSDF ama gaar ahaan siyaasi Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo xilli ka mid ah xilliyada madax jabhaddaas iyada ah ka soo maray inaanu lug ku lahayn dilkii siyaasi Cabdiraxmaan Caydiid, uuna runtii halkaas nasiib darro micnihii ku riixay dowladda Itoobiya iyo sirdoonka Itoobiya inay ku lug lahaayeen oo ka dambeeyeen, iyadoo la ogsoon yahay in dilkaas isaga ah aanu ka baxsanayn loolankii isaga ahaa ee ka dhex jiray gudaha jabhadda SSDF. dilkaas isagaana uu ka dambeeyey garabkii uu hogaaminaya ama madaxda uu ahaa siyaasi ama guddoomiye Cabdullaahi Yuusuf Axmed. arrinkaas isagaana uu si cad oo tiftiran intaanu geeriyoon ilaahay ha u naxariistee siyaasi abwaan Cabdi Maxamuud Amiin waraysi
lala yeeshay uu kaga faallooday isagoo si tafatiran arrinkaas isaga ah ugaga hadlay. ayna nasiib darro tahay maanta geeridii cabdi maxamuud amiin kadib inuu ka faalloodo arrinkaas siyaasi daahir mire jibriil oo ayna ku habbooneed jawaabtaas iyada ah ama aragtidaas iyada ah iyo soo jeedintaasu intii uu noolaa cabdi maxamuud amiin si halkaas iyada ah loo sugo xaqiiqada sooyaaleed iyo runsheegga, balse nasiib darro aana dhicin iyadoo dhowr sannadood labada waraysi u dhaxeeyeen. runtii cabdi maxamuud amiin si tafatiran ayuu arrinkaas isaga ah ugaga hadlay una caddeeyey si aan madmadow ugu jirin qaabkii loo dilay iyo halkii lagu dilay iyo xilligii lagu dilay siyaasi cabdiraxmaan caydiid iyo in qayb ka mida SSDF uu horkacayo guddoomiye cabdullaahi yuusuf axmed uu arrinkaas isaga ah ka dambeeyey. sidoo kale waxaan jecelahay oo xusuus iga ah oo aan gocday gadaal hadal ka mid ah waraysigaas isaga ah ee lala yeeshay siyaasi daahir mire jibriil oo ku jeeda marxuum siyaasi cabdiraxmaan caydiid oo ah in cabdiraxmaan caydiid aanu xubin ka ahaan jirin xubin golihii dhexe ee jabhaddii SSDF ama siduu afka ugu dhiftay Central Community. isweydiintu waxay tahay siduu ku noqday cabdiraxmaan caydiid xogeeyaha arrimaha warfaafinta, sidoo kalena mar ahaan jiray xogeeyaha arrimaha ideolojiyadda ee ururka SSDF haddaanu xubin ka ahayn ama ka ahaan jirin jabhadda SSDF golaheeda dhexe. waxaa la ogsoon yahay dadkii qabtay xilalkaas iyaga ah ama ay xilalkaas iyaga ah ka mid ahaayeen micnihii guddoonka ama hoggaanka warfaafintu iyo hoggaanka ideolojiyaddu qaybaha ugu muhiimsan ee lama huraanka ah ee maamul ee hoos tegi jiray jabhaddii SSDF. qofka ka noqonayana guddoomiye arrimaha warfaafinta ama arrimaha ideolojiyadda ah ee ahayd lama huraan inuu xubin ka noqdo golihii dhexe ee jabhaddii SSDF. arrinka kale ee isaguna arrinkaas la xidhiidha isagoo ah inuu ahaa cabdiraxmaan caydiid madaxdii ugu sarreysay ee jabhaddii dimuqraadiga ee xoreynta Soomaaliya ee la bahoobay ururkii badbaadada qaran iyo ururkii shaqaalaha. garaadkuna uu tilmaamayo in madaxda ugu sarreysa saddexdaas urur markii la bahoobay ay si automatically ama si toos ah u noqdeen xubno ka tirsan golihii dhexe ee jabhaddii SSDF. arrinkaasuna waa arrin beeninaya
soo jeedintaas iyada ah ama maraggaas isaga ah ee ka soo jeeda siyaasi daahir mire jibriil ee la xidhiidha qaab dhismeedkii ururkii SSDF. guud ahaan arrimahaas iyaga ah saan tilmaamay oo xusay runtii wuu ku dhicisoobay siyaasi daahir mire jibriil isagoo meel gaaban runtii wax ka eegay ayna habbooneed inuu xaqaa'iqa sooyaaleed siday tahay u tilmaamo oo u sheego iyadoo loo hilinayo bulshada Soomaaliyeed ee soo socota amaan iraahda jiilasha Soomaaliyeed ee dhalan si loogu iftiimiyo xaqaa'iqa sooyaaleed ee hortood dhacday sidoo kalena u maran habaabiyey bulshada Soomaaliyeed ee maanta nool una u been sheegay isagoo aan ka run sheegin sida wax u dhaceen iyo sooyaalkii Soomaaliyeed iyo sooyaalkii jabhaddii SSDF. daawadayaal dhegaystayaal intaasaan ku soo koobayaa oraahdaydii ahayd ee la xidhiirtay maraggii uu halkaa ka furay amaan oran karo runtii marag beeneedkii uu soo jeediyey siyaasi daahir mire jibriil janalka ha noolaato iyadoo waraysigaas isagaa ka qaaday ayaan leh xuseen cabdi waa khaalid xasan yuusuf oo idin leh inta aan ku kulmi doonno barnaamij kale oo barnaamijka kan isagaa la mida ama la saanqaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.